waxqabadkii waa laga warramay wixii loo qabtayna waa laga warramay waxa loo baahayna waa laga warramay baahina isma taagto inta la nooliyey baahina waa jirtaa dadaalun baynala gudboon inaynu kabaalkaynu marayno dadaalno allahuma salli calaa sayidina maxamed magaaladan durugsi ee degmada ah ee 60kii wax laga dooran jiray sanaaduuqdu taallay waa magaalo qadiima hadday magaalo qadiima tahayna kama muuqato qadiimnimadii annaku yaraan iyo carruurnimo aan ku garanayno hadda kama muuqato sababna waxa uu ah keliya deegaan walba dadka u dhashay ee degan baa hormariya ayagaa hormariya oo hantidooda geliya wixii dowlada haysana ka doonta afrikaynu iska joognaa weliba dowladaan la ictiraafin u naho way iska biyayaroodoo biyahana dee ninkii kaalin riixa unbaa cabba ka kale xoolihiisu ama waa oomaan ama meeshay ku silxaan afrikaankana horaa loo yidhi midba mid ka qaylo badan yahay buu ka badsadaa marka haddaad durugsiun iska joogtaan aad tidhaahdaan durugsi waxaasee u baahan tahay durugsi dal badan baa ka shisheeya oo hargeysi waa dhowdahe laakiin dal badan baa ka shisheeya galbeed iyo bari iyo waqooyiba ka xiga iyo inta dhex joogta iyo inta safraysa ayaa laga yaabaa inay safarkaa wax ku soo helaan marka horta waa taa qodobka quraan idinku baraarujinaya waxa weeyaan marka hore inaa isku tashataan marka la leeyahay durugsi ha isku tashato durugsi waa magaalo weyn waa deegaan ballaaran dad badan baa dadka burco markaan ka soo qaado boqolkiiba 70 burco waa durugsi marka haddee maxay intaas u horumarin waayeen ileen waa burco waa durugsina waa burco soo maaha marka waxay tahay in la hormariyo oo dhaqaalaha iyo baamushtariga burca degan ee durugsi u dhashay iyo kuwan hawdka jooga iyo kuwa ilaa gaashaamo u fiday wuxuuba waa reer durugsi yaa kuwa qurbaha ku noolee faraha badanna waa reer durugsi ee lacagta meelo badanaan macno lahayn oo if iyo akhritoonna wax ku anfacayn u dirayaa ha u soo direen iskuullada inankaasun baan anigu hayaa lib sacad layidhaah raggii qurbaha ka tegey durugsi inankan aytaalkayga wixii uu qabtay waa la qabannay hadday tahay kabkaa inanku imika ka hadlayo waa la soo saaray wasaaradda tacliinta waa kala soo saaray faras iyo lugba waa ku raadinno waa laga helay dhismayaal dowladdu dhistay oo extensionana waa la qabannay imikana wixii lala qabanayo dugsiga hoyga ah diyaar baanu nahay inaanu la dadaalo laakiin ninkaasu de waa noo yimi oo annakuna waa la dadaalay oo markay hawsha kugu badan tahayna ninkii ku dul taagan baad la kacdaa ayaa tidhaahdaa waxaad u haysana dee u hortaa wixii aanad u hayna aad la doontaa yaa oo soomaalidu waxay tiraa afar wada joogta afar maqan ma tixgeliso marka taana sidaasaan leeyahay waxqabadyada wixii aynu qaban karro waa qabanaynaa ambalaaskii haddii la kicin karo wasaaraddii waa ugu qaylinaynaa qayradaasu laakiin waxay ku wanaagsan tahay marka deegaankii oo degmadii ah iyo gobolkii ah ka tirsanaydeen laga socdee qoraal iyo afal lagaga socdo annakuna garabkaanu la qabanayna laakiin haddaan idhahda anugunba ka soo dhufanaya meel waxba yaallaan waa cidhiidhiye wadaanta wax kula qabtaad u baahnanaysa dowladda kula soo dhiga taasuna waxa weeyaan waa kuwan reer durugsi wax lala qabto oo la socdo gobolkoodina ayay noqonaysaa taana way isku ogaanaynaa haddaynu halkan idhaahno fariin baynu wasiir farro kaga hadhno safarkaas waa raagaya marka taas waa taa halkan xanaanada xoolaha iyo caafimaadka waxaan qabaa muddadii markaanu shaqaynaynay wax fara badan inaanu ka bedelay caafimaadkii xoolaha sababtoo amay dhici jirin halkan dawo in laydiin keeno dhakhaatiir idiin fadhiyaan laakiin intii markaanu joognay bay iyay dhacday dhismayaashan intii baanu dhisnay farmasiyadii iyo xafiisyadii baa idiin furan soolarkii baa idinku rakiban tallaajadii dawooyinka xumaanaya la gelin lahaayee aanay xumaadeenba ayaa taalla dhakhaatiirtii baa joogta haddii dhakhaatiirta joogta ay dhakhtarro kale u baahdaan burcaa dhowow laga soo dirayaa
saddexdii biloodba mar baana kambayn la qaadaayo caafimaadka oo dhan xoolaha la dhex maraa wixii xanuuna intaa ku soo baxay xanuunna oo iska imanaya barwaaqada cudurro barwaaqadu leedahay iyo cudurro ay leeyihiin abaartu labaduba waa jiraan marka taana waa lagu dadaalaya haddii alla yidhaahdo halkan imanka dhagax dhigo xarunta durugsu way samaysan tahay xadka tog dheer xarunta ugu fiican baa ka samaysan oo waa tan aynu hortaaganna waxaa yaala raamkii xoolu ka degayeen wixii caafimaad looga baahnaa oo dhan ayaa yaala iyo dhakhaatiirtii waxaan ugu talagalnay mustaqbalka dhow inay noqoto meesha Ethiopia iyo Somaliland ay xooluhu lagu caafimaadinayo karantiinka looga dhigayo lagu nasinayo inay yeelato customiskii duruqsi hindisihii way ku jirtay dowladdii hore iyo dowladdan imankaan ku jiro intaba waxaasoo dhan waxay u baahan tahay culayska dad fahmaya wixii ay duruqsi u baahan tahay magaa ku horumaraysa in la helo halkan waxaanu dhagax dhigaynaa waxa weeye maanta dayrkii awal taar buu ahaayo taarkiina waa ka gogo'ay arkaysaan dayrkii inaynu samayno dhowr meeloodoo karantiino xoolaha lagu caafimaadiyo inaynu samayno meelihii carafka loo dhigay inaynu samayno tayeyno xarunta ayaynu halkan ka samaynaynaa oo dhismayaal kale ku kordhino laakiin xarunta way noo samaysan tahay